السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو صلاة وشوعنا سابت قيمة قايا بدن من البودو نذكر كل شوكتا وحن رجعنا عافمادي وبرواقو إنها نبت قبتين إن شاء الله بإذن الله الكريم. taas markaan kasoo gudbo waxaan soo gaarnay argumenteeni 12 qaybtiisa labaad ee barashada batantibiga qaybta kuwiska sidaad ogtiinba hore waxaan soo sameynay argumenta koowaad labaad saddexaad ilaa iyo kan 11 qaybooda faahfaahinta iyo qaybooda kuwiska. Okay, insha Allah billah al-karim kan markaan dhameeyno 12 waxaan sameynaynaa kan ku sii xiga ilaa aan ka dhameeyno 25 argument. Argumentayaashan hadda faraha aan la galnay mise noo socdo waayahan dambe badankooda ma lahan wax calaamadaha ama wax signal ah marka waa muhiim inaad wada fahantaan insha Allah billah al-karim. muuqaalka like noo saara saaxiibteena kale la wadaaga aad iyo aad wada maasantiin aan bilaabana casharkeen. Wuxuu marka il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'intensità del carico. Il valore معناها قيمته ama cabirka della distanza di sicurezza deve essere waa inuu ahaada stabilita mid lagu qiimeynaya ama lagu qiyaasaya ama lagu tixgelinaya xataa anke in base all'intensità del carico vero waa inta macnaha entità tipo come quantità amal ma u dhigantaa comunque la risposta è vera. Ok, sulla distanza di sicurezza da mantenere del veicolo che precede influisce il tipo di servo sterzo utilizzato. Falso è esatto prima volta. Sulla distanza di sicurezza da mantenere o il rabo maxaa la yiraahdaa inaan ka fogaano del veicolo che precede oo naga horeeya gaariga naga horeeya la rabo inaan ka fogaano. Influisce waxaa caqabadaynaya ama maxaa la yiraahdaa saameynaya il tipo di servo sterzo nooca maxaa la yiraahdaa caawiyaha steerinka utilizzato u leeyahay non c'entra niente servo sterzo iyo distanza sicurezza. Ok, falso. Valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alla condizione dei pneumatici. Vero, asabto qiimaha badan. Valore della distanza di sicurezza distanza ama masaafada kala fogaanshaha حوير مركا deve essere waa inuu ahaada stabilito in lagu qiimeeyo anche in base alla condizione dei pneumatici macnaha distansa masaafada gaariga ka horeeya adiga idan dhaxaysa sidoo kale waxaa lagu qiimeynayaa oo la rabaa in lagu qiimeeyo xaaladda ay ku sugan yihiin taayirada macnaha taayirkaaga hadduu dhammaad yahay hadduu liish yahay oo kale gaari waa inaad ka fogaato waayo fariin markaa qabato waxaa laga yaabaa gaariga inuu kuusii taraarax sooma marka deve essere stabilito vero. Ok, lo spazio di frenatura aumenta se la strada è in discesa. Vero, asabto qiimaha badan. wuxuu yiri lo spazio di frenatura spaceka frenatura oo macnaha inta gaariga marka aad ficilka sameynayso ilaa uu ka istaagay fariin qabashada spaceka uu gaariga ku istaagi lahaa aumenta waa uu kordhayaa meeshii la rabay hal wax yar kadib inuu istaago ma hore kama istaagaa xoogaa kadib uu istaaga camal ay u dhigantaa moogtahay se haddii uu dhaha la strada wadada in discesa ay degaan degay tahay vero wadada mar hadday degaan deg tahay spaceka oo frenatura uu kordhaya. Ok, dalcad markay tahayna diminuisce waay. Lo spazio totale di arresto dipende dall'usura dei pneumatici. Lo spazio spaceka totale di arresto oo isku guud ahaan uu ku istaagay gaariga fariinka marka la qabanayo laga hadlaa moogtahay dipende sidoo kale wuxuu ku xiran yahay ama waxay ku xiran tahay dall'usura dei pneumatici taayirada gaarigeena ku xiran inta maxaa la yiraahdaa la isticmaalaya haddii dhammaad ay yihiin haddii maxaa la yiraahdaa consumati usura waa isla meeshan vero asabto qiimaha badan. Ok, lo spazio di frenatura diminuisce se il conducente ha riflessi pronti. Allora lo spazio di frenatura spaceka oo frenatura diminuisce oo uu yaraanaya se haddii uu dhahay il conducente darawal ha riflessi pronti falcelin degdeg ah haddii uu darawal ku sameynayo cosa c'entra riflessi pronti iyo maxaa la yiraahdaa space yaraanaya. falso haddii xataa darawalka marka riflessi pronti uu yahay macnaha falcelintiisa mar kasta ay diyaar tahay laakiin wadada degaan degay tahay ama gaariga fariin uusan lahayn space ma yaraana waa may. La distanza di sicurezza può essere
inferiore allo spazio percorso nel tempo di reazione. La distanza di sicurezza può essere wuxuu ahaan karaa inferiore mid yar ama ka yar allo spazio percorso nel tempo di reazione. Spaceka maxaa la yiraahdaa oo xilliga falcelinta la sameynayo. Non può essere inferiore mai, ok? Lo spazio di frenatura si raddoppia se la velocità si raddoppia. Allora, wuxuu yidhi lo spazio di frenatura spaceka oo gaarigu ku istaagaya si raddoppia wuu laba jibaarmaya, ok? Si raddoppia wuu laba jibaarmaya se haddii la velocità speedka si raddoppia. No, haddii velocità raddoppia ay tahay 4 volte uu doppiet gareymaa, non è raddoppia normale, ok? Marka si raddoppia falso è perché si quadriplica miya wax noocaasa 4 mar uu raddoppia gareymayan, ok? Falso è. Marca. In un secondo se si percorre circa 14 metri, se si percorre 50. Allora 50 era 14, 30 era 9, 100 era 28, 130, il ducuro è 36, 140, 150. 150 wuxuu ahaa 42. Ok. 14 se si viaggia 50 vero è sabe, ok? Lo spazio di frenatura si quadriplica se la velocità si raddoppia. Mujeedin hadda marka hadeertan waaye hadday macnaha si raddoppia se la velocità raddoppia uu dhahay, laakiin false perché spaceka frenatura uu gaariga ku istaagaya si quadriplica 4 mar uu noqonaya se la velocità haddii speedka raddoppia ay tahay. Marka quadriplica vero waaye, ok? Valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'efficienza dei freni. Valore macnaha cadadka oo spaceka gaariga kale ka horeeya sicurezza deve essere waa inuu ahaada stabilito mid lagu qiimeynaya anche sidoo kale in base all'efficienza qaabku u shaqeynayo dei freni. Macnaha freenka hadduu si fiican kugu shaqeynayo hataa gaariga haddaa hoosta kaga jirtid xoogaa yar waa awoodi kartaa inuu fareen kuu qabso gaariga kuu istaago. Laakiin haddii fareenkii oo kuu shaqeynayn oo si fiican u shaqeynayn, taayiradii oo dhammaadeen, wadadii oo qoyan, haddaa gaari hoosta ka gasho marka deve essere stabilito anche in base all'efficienza dei freni, vero waaye, ok? Valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina espanditrice di sale in azione è di 20 metri. Valore cadadka della distanza di sicurezza u dhaxaysa valore waxaa cadadka maahno valore della distanza di sicurezza cadadka sicurezzaha oo macnaha distansaha da mantenere la raba inaan ka fogaano da una macchina gaari espanditrice di sale in azione di 20 metri, vero, ok? La distanza di sicurezza può essere maggiore dello spazio percorso nel tempo di reazione. Distanza di sicurezza può essere wuxuu ahaan karaa maggiore mid ka badan dello spazio spaceaha percorso nel tempo di reazione, vero waaye, perché reazionaha inta aad ku sameynaysid iyo inta distansaha aad gaariga ka fogaanaysid distansaha mar walba inuu badnaado way fiican tahay, ok? La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 metri in caso di nevicata in atto. La distanza di sicurezza masaafada gaariga kale adiga kaa horeeya la raba inaad ka fogaato deve essere waa inuu ahaada di almeno ugu yaraan 100 metri 100 metr. Gaariga kaa horeeya inaad 100 metr ugu yaraan aad ka fogaataa. In caso di nevicata haddii ay jirto ama uu da-ayo baraf ama baraf uu jiro in atto, in action, uu da-ayo macnaha qubanayo kale. No, 100 metri secondo me è falso, ok? Non è 100 metri distanza. La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 metri nelle forti discese. Distanza di sicurezza
oo kala gaariga ka fogaanayso deve essere waa inuu ahaada almeno ugu yaraan 100 metri 100 metri nelle forti discese wadooyinka degaandega oo degaandega awood badan no falso waa 100 metri okay. Allora, sulla distanza di sicurezza influisce l'efficienza del freno di servizio, vero? Il freno di servizio influisce. Il freno di servizio waxaa la fariinka marka gaariga wadada uu saaran yahay aad isticmaalayso qabanayso. Okay? Marka la risposta vero è. La distanza minima di sicurezza se si viaggia 130 km/h deve essere di circa 29, deve essere 36, non 20, secondo me. 36, ok? 130-36. Conducente deve stabilire il valore della distanza di sicurezza anche in base alla larghezza del veicolo di qui alla guida. Come la larghezza? La larghezza non, lunghezza magari. La lunghezza è non la larghezza, balla. Udoya, falso. Il conducente idraulico deve stabilire o inuu ku qiimeeyo il valore cadadka della distanza di sicurezza anche in base a soo eegaya alla larghezza ballaca del veicolo gaariga di qui alla guida uu wado. No, la lunghezza waa non la larghezza, ok? La distanza minima di sicurezza se si viaggia 130 km/h deve essere di circa 36, esatto, hadaya maxaa idin dhahay 130 markay tahay 36 waay, ok? Siamo? Valore della distanza di sicurezza da mantenere da una macchina scombraneve in azione è di 10 metri, non 10 metri, 20 metri era. Penso di sì, 20 metri, non 10, falso. Ok? 10 metri 6 da Udoda. Lo spazio totale di arresto è pari allo spazio percorso nel tempo di reazione. Lo spazio spessato totale di arresto o gaarigu istaagay e pari wuxuu u dhigmaa lo spazio spaceka percorso nel tempo di reazione falcelinta no wuu ka badan yahay falso. Sulla distanza di sicurezza influisce il numero di marce del cambio di velocità, non c'entra niente marcia di cambio di velocità, falso, esatto, qiimo badan. Allora, lo spazio totale di arresto aumenta se diminuisce la velocità, falsissimo perché spaceka guud ahaan uu gaariga ku istaagaya waa uu badanayo uu yidhi haddaan yarayno speedka no speedka haddaan yarayno spaceka uu ku istaagayo wuu noo yaraanaa speedka hadduu saaid yahayna spaceka uu ku istaagayo waa uu badanaa, ok? Marka aumenta se diminuisce la velocità, falso. Lo spazio, allora, valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alla condizione atmosferica, vero? Asaaf qiimo badan. Valora distanza masaafada kala fogaanshaha gawaarida deve essere waa in lagu qiimeeyo sidoo kale stabilita anche in base anagoo eegayna alle condizioni marxaladaha atmosferika jawiga haddii jawi ceeri ama tahay jawi roob haday tahay vero, ok? Lo spazio di frenatura aumenta se la strada è nevata. Spaceka oo fariinka ku qabsamaya gaariga ku istaagaya aumenta waa uu kordhaya se haddii la strada wadada è nevata ee uu baraf ku daadsan yahay innevata, vero, ok? Lo spazio totale di arresto non dipende dalla velocità, falso è perché waxay ku xiran tahay velocità, ok? Usura dei pneumatici, velocità, stato del veicolo, stato della strada è ku xiran tahay marka non dipende, falso è velocità ku xiran tahay, falso. Valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base al tempo al tipo di alimentazione del motore, falso, esatto, qiimo badan perché muxuu yidhi valore cadadka della distanza di sicurezza oo xaaladda amni masaafada amni deve essere waa inay ahaataa stabilita mid lagu qiimeynaya anche in base anagoo eegayna al tipo di alimentazione noocaan isticmaalayna oo isticmaalaya del motore macnaha shidaalka laga hadlaa mog falso haddaa benziin isticmaalaysa haddaa gas isticmaalaysa haddaa tu devi mantenere sempre la distanza. Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base alle condizioni del traffico, vero? Perché waa in lagu qiimeeyaa marxaladda traafikada wadada isu socodka, ok? How you know?
La distrazione del conducente può essere causata dall'accensione del cellulare, vero asxaabta qiimaha badan. La distrazione ama mashquulida del conducente darawalka può essere waxay ahaan kartaa causata mid sababaysa dall'accensione del cellulare, inuu telefonkiisa daaro ama uu ku mashquulo ayaa keeni karta inuu maxaa la yirahdaa darawalka uu mashquulo kadibna dhibaato geysto. Maaragtay hadda inta badan baabuurleyda, gawaarileyda, gaadiidleyda whatever ayagoo telefoon isticmaalayaan mararka qaar wadada ay ka baxayaan, mararka qaar laamigay gaari kale ku dhacayaan. Marka può essere causata, vero? Lo spazio di frenatura diventa 16 volte maggiore se la velocità si quadruplica. 16 volte? Quadruplica, sì, ogni una perché raddoppia, quindi 4 per 4, ok? 4 per 4, 8, 16, vero? Ok? 16 volte. Allora asxaab qiimaha qaaya badan casharkeena saas ayaan ku dhamaynay. Waa argumentii 12aad qaybtiisa labaad. Waxaan uga hadlaynay distanza di sicurezza. Kolay sida u jeedin wax calaamadaha meesha ma soo galin, minaan arkin calaamado. Argumentayaashan hadda maxaa la yiraahdaa aan sameynayno dhammaantooda intooda badan wax calaamada ma laha, marka waa muhiim inaad fahantaan si hal mar aad isku dhaafisaan imtixaanka. Okay, hadda waxaan fiirinaynaa natiijada insha Allah billahi alkarim. abd qiimaha qaaya badan sida in muuqato casharkeena saas ayaan ku dhamaynay. Waxana maana qaldin maasha Allah, si qurux badan ayuu noogu dhamaaday. insha Allah waxaan rajeynayaa idinkana sidaas oo kale inaad ku dhamayn doontiin. aad iyo aad wada mahadsantiin. Guuleysta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.